kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararka shabakada heegan qodobada ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid noqonaya wufuud kala duwan oo kasii qulqulasta magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud iyo wararkii ugu dambeeyay qabanqaabada halkaasi ka socota ayaad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay doorashada maamulka Jubbaland iyo liisas xildhibaano ah oo diidan oo lagaga dhawaaqay magaalada Kismaayo wararkii ugu dambeeyay doorashadaasi ayaad ku daawan doontaan kuuriyada waqooyi oo ciidamada u soo diraysa Soomaaliya sababta ciidamadaasi loogu soo dirayo Soomaaliya ayaad ku daawan doontaan gudoomiye ku meel gaar ah oo loo doortay baarlamaanka Jubbaland ee khilaafku ka taagan yahay wariyaal iyo askari ilaalo hay'ad Axmed Madoobe oo ka mid noqotay baarlamaanka Jubbaland si mar kale Axmed Madoobe uu dib ugu soo laabto madaxnimada maamulkaasi Jubbaland Somaliland oo sheegtay in ay qabqabteen maleeshiya dad ku dilay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag oo shalay halkaas ka dhacday shaqaaqo wararka ka baxsan Soomaalida aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xuutiyiinta dalka Yemen oo weerar ku qaaday garoon ku yaala dalka Sacuudiga markale kulan wacan daawadayaal intaas waxaan qodobada ugu waaweyn wararka shabakada Heegan News idiinayso waqtigan waa maalmo talaadada taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 8 sanada 2019 daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay daawashada channelkan subscribe videona like saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka aku bilowna magaalada Dhuusamareeb xarunta maamulka Galmudug waxaa saacadii la soo dhaafay ku sii qulqulayay ergooyin kala duwan oo ka imaanaya qaybaha ka dhisan deegaanada maamulkaasi Galmudug waxaana halkaasi lagu soo dhaweeyay ergooyin fara badan oo ka yimid gobolka Mudug iyo Galgaduud ergooyinkan ayaa dhamaantood waxa ay ka kala imaadeen deegaanada Mudug iyo Galgaduud oo ka kooban yahay maamulka Galmudug iyadoo ayna soo dhaweyn ugu sameeyeen magaalada Dhuusamareeb xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada shirkaasi xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug ayaa xalay waxay ku dhawaaqeen habraaca oo firmi doona shirka iyadoona guddiga qabanqaabada shirkan ay wadaan kulamadii ugu dambeeyay oo ay la yeelanayaan bulshada magaalooyinka Dhuusamareeb waxaa sidoo kale magaalada Dhuusamareeb laga dareemayaa qabanqaabada ugu dambeysay ee ku aadan qabsoomada shirkan dib u heshiisiinta oo la filayo inay bilowdaan 17 bishan ee ku beegan maalinta Sabtida ee nagu soo aadan waxaana aad loo adkeeyay amniga guud ee magaalada Dhuusamareeb dhinaca kalena waxaa jirta beela qaar oo deegaanada Galmudug sida magaalada Cadaado oo hore u sheegay inaysan ka qayb gali doonin shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb lagu qabanayo iyagoo soo bandhigay shuruudo kala duwan taasi ay uga dhigeen markana magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland waxaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada doorashada maamulkaasi kaasi oo la filayo in ay dhacdo dabayaaqada bishan aan ku guda jirnay August xalay guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland waxay ku dhawaaqeen liis xildhibaano ah oo ka kooban 73 xubnood ay sheegeen inay ka harsan yihiin 2 xubnood kuwaasi oo dooran doona guddoonka baarlamaanka Jubbaland iyo madaxweynaha yaasha u tartamaya xilka madaxweynimada maamulkaas waxaa magaalada Kismaayo laga dareemayaa ololaha ay wadaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland iyadoo ayna amniga guud ee magaalada Kismaayo si weyn loo adkeeyay sidoo kalena amniga xarumaha lagu qabanayo doorashadaasi ay sugayaan ciidamada booliska Jubbaland iyo kuwa Amisom magaalada madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa marar dhowr ah ku celceliyay in doorashada hoggaanka Jubbaland aysan waqtigeeda dhaafi doonin isla markaasina qof waliba oo musharax ah uu soo dhaweynayo dhawaan ayaa sidoo kale magaalada Kismaayo waxaa gaaray wafdi ka socda urur goboleedka IGAD kuwaasi oo kulamo kala duwan la qaatay odayaasha soo xulanaya xildhibaanada guddiga doorashada musharaxiinta Jubbaland sidoo kalena qaybaha kala duwan ee bulshadaas iyo madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland balse wali waxa muran uu ka taagan yahay habka loo maray soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka kuwaasi oo guddiga doorashada ee maamulkaasi xalay ka dhawaajiyeen waxaa jira guddi kale oo ay magacaabeen golaha badbaadada maamulka Jubbaland ee musharaxiinta ku midoobay kuwaasi oo iyaguna xubno ay sheegeen inay yihiin liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaankaasi maanta soo bandhigay iyadoo khilaaf wali ka taagan yahay waxaa dhankooda iyaguna liis cusub oo xildhibaano ah shaaciyay guddiga doorashooyinka ee maamulka Jubbaland ay magacaabeen dhawaan xubnaha musharaxiinta ee ku midoobay golaha badbaadada maamulka Jubbaland kuwaas oo iyaguna saaka ku dhawaaqay liis xildhibaano ah oo ay kaga soo horjeedaan liiska Axmed Madoobe uu soo saaray xalay
tan ayaana la fahansan yahay khilaafka xoogan ee u dhaxeeya iyo kala aragti dugnaanshaha Axmed Madoobe iyo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynimada Jubbaland halka uu marayo iyadoona guddigii hore oo Axmed Madoobe magacaabay ee doorashooyinku ay xalay ku dhawaaqeen lees xildhibaano oo 73 ka kooban halka saaka ay guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen musharaxiinta cusub ee u taagan xilka madaxweynimada Jubbaland iyaguna ay shaaciyeen lees xildhibaanaha kuwaas oo ku sheegeen inay ka mid noqonayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka kuwaas oo soo xulan doona madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi balse lama oga halka ay ku dambeyn doonto dabayaaqada bishan ayaana lagu wadaa in doorashada maamulka Jubbaland ay soo gabagowdo weli ma muuqato weli waxa daawanaysan wararka shabakada Hegan markana dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa qorsheynaysa in 300 oo askari oo dheeri ah u soo dirtay xeebaha Soomaaliya ee gacanka cameed sida lagu soo xigtay wakaalada wararka dalkaasi Yoha wakaalada ayaa soo wareysatay saraakiil ciidamada badda Kuuriyada Koonfureed ciidankan dheeriga ah lagu xoojinayo howlgalka la dagaalanka burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya isla markaasina ay halkaasi joogi doonaan muddo 6 bilood ah oo ka bilaabata bishii nagu soo aadan ee September sanadan 2019 guutada Suudanaad ayay qorsheynayaan inay tagaan magaalada dekedda ah ee Koonfureed ee Buseed kuwaas oo gaaray dabayaaqadii toddobaadkan la filayana inay soo gaaraan xeebaha Soomaaliya si ay uga mid noqdaan ciidamada howlgallada xeebaha ee la dagaalanka burcadbadeeda ciidamada badda ayaa qayb ka ah kuwa doonaya inay soo gaaraan xeebaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan maraakiibta xeebaha Soomaaliya sidoo kalena ay u taageeraan oo siiyaan maraakiibta kale ee ku sugan biyaha gacanka Hormuz ayay sidoo kale howlgal doonaan halkaasi oo Mareykanku ugu yeereen xulafadiisa in ay abuuraan isbahaysi ka dhan ah dhaqdhaqaaqa militariga ee Iran iyadoo ayna sii kordhinayaan xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran si kastaba haatee Seoul ayaa sheegtay inaysan helin wax codsi rasmi ah oo Mareykanka kaga yimid oo ku saabsan arrinta haatan ee xogayaha difaaca Mareykanka carabkana ku adkeeyay inay muhiim tahay in xorriyadda marinka gobolka uu noqdo mid isku furan isbahaysi cusubna halkaasi laga yeegleelo guddiga doorashooyinka maamulka Jubbaland ayaa xalay lees xildhibaano ah kuwaasi oo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Jubbaland ku dhawaaqay xildhibaanadan ayaa waxaa ka soo muuqday dad fara badan oo aad ugu dhawaa Axmed Madoobe sida dad badan ba ay saadaalinayeen xildhibaanadan cusub iyo halka loo maray soo xulista xildhibaanadan waxaa inta badan ka dhex muuqda wariyaal iyo dad lagu sheegay in ay hayeen saraakiil isaga ilaalo u hayd kuwaasi oo doonaya inuu mar kale Axmed Madoobe dib ugu soo celiyaan hoggaanka deegaanadaasi taasi oo ay musharaxiinta iyo waliba dowladda dhexe ee Soomaaliya ay marar badan ka digeen in loo maro habka haatan loo soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland welina waxaa muuqata habka ay isku khilaafsanaayeen iyo wadada haatan lagu shaaciyay weli waxaa daawanaysan wararka shabakada Hegan markana madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland ahna kusimaha madaxweynaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa markii ugu horeysay ka taxsiyeeday ehelada 7 ruux oo 4 kamid ah ay hayeen haween kuwaasi oo lagu dilay deegaanka Ceel Lafayn ee gobolka Sanaag waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka in qaar kamid ah dadkii dilkaasi geystay ay ciidamada amnigu ay gacanta ku dhigeen halka qaar kalena ay dabagalna lagu hayo sida uu sheegay kusimaha madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada deegaanka Ceel Lafayn inay xil iska saaraan adkeynta amniga xukuumadda Somaliland marnaba ma aqbali doonto dhiigga dadka ehelka ee maalin walba macna darada ah loogu daadinayo ayuu yiri Saylici madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu ku amray ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan waajibkoodana gutaan dadka falalka amni darada iyo dalalka ka wada gobolka Sanaag deegaanka Ceel Lafayn ee gobolka Sanaag ayaa waxaa ku soo badanaysay kuna soo laalaabtay muddooyinkii dambe dagaalo u dhaxeeya maleeshiyaad kuwaas oo abaabuleen hab qabiil magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland waxaa maanta lagu dhaariyo xubno cusub oo ay xildhibaanada baarlamaanka labada ee maamulkaasi Jubbaland oo xalay lagu dhawaaqay dhaarinta kadib xubnaha xildhibaanada ayaa waxaa Sheekh Cali Cabdi Yuusuf Cali oo ah xildhibaan ugu dadweynaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Jubbaland loo doortay gudoomiyaha ku meel gaarka ah inuu soo doorto gudoonka cusub ee maamulkaasi gudoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka Jubbaland ayaa qaban doona kala fadhiyada xildhibaanadan ka shaqeyn doona soo xulista iyo doorashada gudoonka baarlamaanka iyo shaqooyin kale oo muhiimka ah wali waxa daawanaysan wararka shabakada Hegan markana akhbaraadka dibadda
ugu dambeynna maleeshiyaadka xuutiyiinta dalka yemen ayaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday garoonka ablah ee koonfurta galbeed sacuudiga oo u dhow xuduudka yemen waxaana sidaasi maanta shaaciyay telefishinka almasr ee xuutiyiinta warbaahinta dowladda sacuudiga weli kama aysan hadal weerarkaasi islamarkaasina saraakiisha sacuudiga ayaa si degdeg ah uga jawaabin loogana helin jawaab xuutiyiinta oo magaalada sanca ee dalkaas yemen maamulo ayaa weeraro waxay bilihii lasoo dhaafay ku qaadayeen xarumaha militariga ee dalkaasi sacuudiga kuna yaala gudaha dalka sacuudiga iyagoona taasi jawaab uga dhigayay militariga iyo isbahaysiga sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiyiinta kana wada muddada 4 sano gudaha dalkaasi yemen guud ahaan saaxiibayaal waa naga intaas warkeed kala socoteen shabakada Haga News Product daawada hadii ay tahay markii ugu horeysay daawashada channelkan subscribe leh video-gana like saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka